wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa amarro culus ku soo rogtay hoteelada kala duwan ee dalka ee lagu qabto xafladaha taasoo la xiriidha inaanay xafladahaasi ka dambeyn karin 12 iyo 50 daqiiqo habeenimo saasina waxa warbaahinta u sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Muuse Diiriye waxaan u sheegaynaa ummadda ama hudheeleyda in waqtiga lagu caweynayo ama xafladaha lagu qabanayo عويسك ولا عوين كرا ولا فردي كرا حسي شيء حفلتها هي مناسبتها لو قبنايا أنا كدم بينين كوبية طبنك هي كنتن دقيقة أما اللبية طبنك أو طبن بريد لا وحنو شيءنا عويسك اللي عويني هو دليل اللي عويني إنه ممنوع كتاعي إلا واركو خمرو حشيشد شيشد يوحي كلا إلمدي عارمنا لوارا وحلا فريق دمان بعيدا بليسك إن هوشا يدعى على قبل عاوة وهي تاريخ صحيح لبيه طبنك بشي كوبيه طبنات أي قتام واجب كوده تاسان فرينا wasiir ku-xigeenku wuxuu sheegay inay digniin kama dambayso u dirayaan dhalinyarada kooxaha isku laaya ee magaalooyinka Soomaaliland isagoo arrimahaas ka hadlayna wuxuu yiri reer Soomaaliland ee jooga ubadkoogi suuqa mashaakilka ka geysanaya waxaan leenahay ubadkiina qabsada ilaaliya la socda waxay ku maqan yihiin waxaan uga digaynaa dhalinyarta faasaska iyo waxyaabaha kale foosh xulle isku haystay isku dilay inaan loo adkeysan doonin hadda kadib inay magaalooyinka nabadgelyadooda dadka nabadda ku seexanaya nabadda jidadka ku maraya walaalahooda inaan wax dhibaato u geysan waxaan idinka baryeynaa oo idinka codsanaynaa ubadkayga baati inaad ilaalisaan akhlaaqiyadkiina ayaan idinka fadhinaa haddii ay baryadaasi iyo adeerayaal aabayaashaasi idin deeq weydo tallaabo adag baan qaadi doonaa ka galbeed wixii soo qabano bari guntii baan geyn doonaa ka rabshad ka sameeya barina galbeed baan geyn doonaa ha ogsoonaadanta waxaan uga digayaa dhalinyarta la doonayo mustaqbalkooda in la dhiso dadnimadooda in la dhiso dalka loo dhiso mustaqbal loo horseedo ee iyagu istilayeen aanan u adkeysanayn aanan kana aqbalay taasna fariin baan uga dhigaynaa maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Cagaweyne ayaa tilmaamay hoteelada amarkaasi qaadan waaya ee caasimadda Hargeysa inay kala noqon doonaan ruqsadda isagoo arintaas ka hadlayna wuxuu yiri haddaba hoteelka ama meherada xafladaha run ahaantii iyo meheradaha sidaa sameynaya ee dhaafaya waxa loo sheegayaa inaan sharciga waafaqsanayn ama amirtaasoo dawladda hoose iyo booliska wasaaradda arrimaha gudaha ay siisay waxa ay dawladda hoosena kala noqon doontaa liisanka meheradeed hoteelka uu honkaasami waaya waxa lagala noqonayaa liisanka meheradeed ama ogolaanshiyaha albaabfurka meheradeed waayo halka waxa ku jirta nabadgelyadii waxa ku jirta gawaadhada ka soo baxda iyo dhalinyarada ka soo baxda runtii nabadgelyadoodii aniga waxba hadalka badaniin waxaan halkan ka cadeynayaa in saacada dambe soo jeedkeedu uu dhibaato yahay markii ugu horeysay xukuumadda Soomaaliland amarro noocan ku soo rogtay hoteelada kala duwan ee dalka sidoo kalena ka digtay in lagu isticmaalo shiishada iyo mukhadaraadka kala duwan Ismaan Axmed Ismaan Saab TV Hargeysa